maanta waxa ay ku beegan tahay sanad guurada maalintii ay jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday Somaliland ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale inkastoo aan ilaa iyo iminka aanu jirin dal u aqoonsaday dawladnimo ay muddadaasi raadinayeen haddana waxaa jira dalal xafiisyo ka furtay magaalada Hargeysa iyo kuwa ay iyagu ku leeyihiin aqoonsi la'aanta haysata Somaliland waa waxa ugu badan ee la soo hadal qaado marka arrimaheeda laga hadlayo waxaase lagu kala aragti duwan yahay waxa aqoonsiga kaga maqan yahay warbixin amurtaasi la xiriirta waxa Hargeysa inooga soo diray Sadiiq Maxamed Burmad maanta ma jirin dabaaldegyadii la sameyn jiray ee shacabkuna ay u soo daawasho tagi jireen awal hore waa sanadkii saddexaad ee aan dabaaldegyo meel fagaara ah loogu samaynin xuska 18 May duruufo la xiriira abaaraha iyo xanuunka COVID-19 ayaa lagu sababeeyay joojintooda halkan ay isugu yima jireen kumanaan dadweyne ah oo daawasho imaada ciidamada kala duwan ee qalabka sida iyo gaadiidka ciidanka iyo qaar ka mid ah ardayda iyo ururada bulshada oo jidkan aad arkaysaan gaardi ku mari jiray iyadoo baanboydu ay hor kacayso waxaana ay ahayd waxay dadku aad u xiiseeyaan daawashadeeda waxa ay 30 sano ka soo wareegtay maalintii Somaliland ku dhawaaqday gooniisutaaga welise lama aqoonsan Professor Maxamed Guudle oo shahaadada PhD ku diyaariyay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah waxa uu sharaxayaa caqabadaha ay tahay inay Somaliland ay ka gudubto si ay ugu sahlanaato inay aqoonsi hesho qodobkooda waxa weeyaan xuduudaha 1960 wixii ka dambeeyay gumeystayaashii ay ka tageen oo kale caqabad bay ku tahay waayo shirka Cairo 1964 waxa uu tilmaamayaa in xuduudahaas ay yihiin lama taabtaan lama bedeli karo taasi waxa weeyaan waa caqabad koobaad caqabadda labaad waxay tahay Somaliland inkastoo ay shaqo badan oo fiican ay qabatay oo dadkii la isu keenay oo bulshooyinkii beelihii la heshiisiyay oo dawladnimadii wax u eeg la dhisay oo haddana waxa jira meelo fara badan oo u baahan godolooyin badan inay jiraan institutions waxa la yiraahdo ama hay'adaha dawladeed oo kale sidii loogu talagalay uma shaqeynayaan qof baa meel ka hadlaya oo intaan wax buu sheegaya qofkii waxa laga yaabaa in muddo uu xidhnaado wadatin saxaafadda laftigeeda kale culays badan baa ay marka qaarkood nidaamyadii Somaliland soo maray ama dawladda Somaliland soo maray ee kala duwanaa xisbiyada kala duwan ka yimid ay ku hayaan marka wadan in Somaliland la aqoonsadana waan doonaynaa qadiyada Somaliland korbaan u riixaynaa ama horaan u wadaynaa haddana waxaan dhaawacaynaa maxaa la yiraahdaa nidaamyadii dimuqraadiyadeed ee la doonayay dawladda kale in lagu gaarsiiyo talaftigeedu waxay u baahan tahay in si miir qabto loo eego Soomaa dhalinyarada Somaliland badi waxa ay dhasheen intii Somaliland ay jirtay intaaba waxay naawilayeen aqoonsi la helo waxyaabaha aqoonsiga la maqan yahay waxa kamid ah inaanan haysan matalaad rasmi ah oo dalkayga aan matali karo oo tusaalaha markaan shirarka ka qayb galayo dhalinyaro kala duwan aan la kulmayo waxyaabaha la weydiin karo waxa kamid ah in emojiga calankaaga ee wadankaaga na tuso kale ama isticmaalo kale noo sheeg taasna ama qaarkood bay isticmaalaan ka Soomaaliya buluuga marka kooda calankayga ma ahana ayranayaan hadaba kaaga soo saar marka uu sheegtay ku tiraahday calankayga meesha kuma jiraan yani waxay noqonaysaa sheeko dheer gasho sharaxdo waxa dalka aad rabtaysi iyo moogtay jiritaankaaga waxa soo dhaad ka sheekayso shalay waxaan ciidul fitri maanta waxaan ciideedii ay dhimay wallahi de waxaan oran karaa maanta aqoonsiga ma baahni waayo wax gaal samaystay weeyaan aqoonsiga Somaliland naga ka maqan wuxuu nagu hayaa dhibaatooyin badan iyo ciriiri badan because de waxyaabo badan naga xaniman wax naga xaniman lacagteedii caalamiga ahayd baasaboorkaygii waxyaabahaas oo dhan adduunkii nooma ogoleena wax ku isticmaalo haddaba waxaa qadka magaalada Hargeysa toos ugu jira Maxamed Cabdullaahi Ducaale oo ah aqoon-yahan iyo cilmi baare siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland iyo wadamada aan aqoonsiga haysana wuxuu sidoo kale qaynuunka caalamiga ka dhiga jaamacadda Hargeysa Maxamed soo dhawow warbixintiina waad la socotay ugu horeyn gooni isu taaga Somaliland 30 sano ayuu maanta loo dabaaldegay dad badanna waxa ay dhaliilaysan yihiin shaqada laga qabtay siyaasadda arrimaha dibadda 30 sano marka maxaa Somaliland u hagaagay Bismillahirrahmanirrahiim aad iyo aad ma hasantahay Ismaan horta marka ugu horeysay Somaliland maanta waxay xusisay 30 sanadood oo nabad dhistay oo ay dal dhistay oo ay dimuqraadiyad dhistay oo ay institution dawlad dhistay Ismaan oo soo socoto way adag tahay in nabad la dhiso oo wada aragtaa waxa haysta Afghanistan waxa haysta Soomaaliya Somaliland shaarihiin iyo wadamo badan oo wadamadii post conflict la doonayay in ay kobcaan marka Somaliland arrimaha qabsato waa arrin mucjisa arrimaha dibadda haddaan si yar kooban u sheego horta marka ugu horeysay Somaliland siyaasadeeda arrimaha guddigeeda ugu weyn wuxuu ahaa inay aqoonsi caalami ah hesho aqoonsi caalami ma helin laakiin adduunyada waxay la macaamishaa sidii xaqiiqi jirta oo de facto state oo dal Soomaaliya ka madax bannaan
oo wixii soo madax banaan afartan dal ayay adduunyada xafiisan ku leedahay ama ha noqdaan kuwo wakiila ama ha noqdaan kuwo markaa hab siyaasadeed be baasaboorkeeda in afartan waddan ka badan baa lagu tagaa intaas oo dhan haddana Somaliland may guuleysan inay si rasmi ah qaramada midoobay iyo urur goboleedyada kale ka mid noqoto sidoo loo ogtahayna aqoonsigu waa arrin siyaasi ah laakiin waxaan aaminsanahay Somaliland inay qabatay shaqo aqoonsiga ka weyn waayo in dawladdiisa waa arrin adag waliba dal baaba'ay oo 30 sanadood man hoola ku military haystay institutionskiisa iyo wax walba ay baaba'een in dib loo yaqleelo arrin weyn oo mucjisad ay qabatay sideedaba wadamadii waxay noqonaysaa dalkii ugu dheeraa Afrika ee 30 sanadood imika in ku dhow ama 30 sanadood madax banaana wadamadii markaa inta la aqoonsaday hadda eegto qadiyadeeda inta badan waxa dabada ka waday wadamadii markaa waaweynay adduunyada Somaliland si daro ma helin adduunkuna inta badan waqtigiisu ku badnaa wuxuu geliyay Soomaaliya si nabadgelyo looga dhalin lahaa oo ilaa imika muuqato arrintaas inaan waxba ka soo socon waxaan aaminsanahay markaa in Somaliland arrintii wax badan ka qaban karto waxyaabaha u haray isla markaana xoojin karto waatay maxamed inta aad sheegtay waxyaabaha qaarkood mirahooda maxamed waxyaabaha qaarkood mirahooda mugdi ayaa ku jira qaybo ka mid ahna dadweynaha iyagaaba samaystaba dadka reer Somaliland nabadda waxyaabo badanba shacabkii ayaaba gacnahoodii ku keensaday marka maxaa iminka laga filan karaa 30 sano soo socda walaani waxay la tahay 30 sano soo Somaliland oo markuu ugu horeysay mas'uuliyaddu waa wax la wada leeyahay ama noqotay madaxweyne ama shacab marka dalkan dadku way wada dhisteen shaqo ilaa madaxweyne ilaa oday ilaa dhamaan waxaan filayaa Somaliland 30 sano waxa ugu waaweyn u yeelaa inay tahay in wixii ay samaysato horta si adkaysato haday tahay nabadgelyo dimuqraadiyad dawlad dhisid isla markaana xidhiidhadeedii ay saaxiibadooda lahayd ay sii xoojiso shaqo badan oo xagga gudaha ana gaar ahaan siyaasadda ay ku wajahayso wadamada xiriir la sameynayso wax ka bedesho dhaqaalaheeda ku dhisa arrinta ku bixinayso xafiisyada diblomaasiyadeed ugu eegto institutionskii diblomaasiyadda dalka wasaaraddu samayso isla markaana runtii ay ka faa'iideysato isbedelada siyaasadeed ee xagga geopolitics adduunyada oo runtii waxa muuqata adduunyadu inay imika aad ugu soo jeesanayso oo xaqiiqadana la ogaanayo waayo adduunku aqoonsigu waa ogtahay wadamo badan oo Afrika aqoonsi haysta dadku dhaqaaluhu baaba macluul baa ka jirta marka dalka in la dhiso oo dawladnimadiisa iyo dhaqaalihiisa la koriyo ayaa horta gundhigu ah dadkii wadankii dhismay dhaqaale leh ayaa adduunyaduna wax la qabsan kartaa waxna ku darsan kartaa waatay maxamed laakiin adduunka kale waxa ka sokeeya gobolka marka Somaliland intee ayay ku leedahay wax gobolka ka socdo dhaqdhaqaaq intee awoodeeda iyo waxyaabaha galangalka ay ku leedahay maxaa kamid ah wallahi sidoo tahay Somaliland horta xiriir soo jireen ayay leedahay labada dal ee xaggan ka xiga gaar ahaan Djibouti iyo Ethiopia xiriirkaas oo markaa mid diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaalaha leh nasiib darrada meesha dhacday waxay tahay adduunyada ayaa arrinta Somaliland dib ugu soo celisay regionka oo runtii aan u arkay nasiib darro weyn waayo saad ogtahay urur goboleedyadu awood uma leh ama midowga Afrika inuu xaliyo mashaakilkiisii marka horeba waxay adduunyadu inaanay arrinta Somaliland dib ugu soo celin aakhirkana sida ku dambeyn doonto adduunyadu door weyn bay ka gaarsiisan doontaa saad ogtahay Somaliland xuduud weyn ay leedahay dalka Ethiopia Djibouti nabadgelyadeeda sugta dhaqaale badan bay ku bixisaa waxay iskaashi badan kala samaysaa wadamada badda ee gacanka door weyn bay ku leedahay arrimaha ka socda badda waxyaabaha soo dhan waxay muujinaysaa qaangaarnimada dawladnimada ee Somaliland muujinaysaa taa macnaheedu ma ahayn wax waliba ay runtii dee Somaliland ay ku guuleysatay waa mahadsantahay maxamed cabdullaahi waqtiga noo saamaxayn aad baad u mahadsantahay